Halkan oo ah deegaanka Gabdhaale oo qaybka deegaanada hoostaga deegaanka Camaara ee Koonfurta Gobolka Mudug waxaa maanta la wareegay ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 11aad ee militariga Soomaaliya kuwaas oo toddobaadkii la soo dhaafay howlgalo ka dhan dagaalamayaasha Al-Shabaab ka waday deegaanada ka tirsan Koonfurta Gobolka Mudug. Ciidamada xoogga dalka ee maanta la wareegay deegaanka Gabdhaale iyo deegaanada kale waxaa hogaaminayay taliyaha qaybta 11aad ee ciidanka xoogga dalka General Xasan Maxamed Abukar Xasan Jaabici waxaana ciidamada ay gudaha u galeen sidoo kale dhowr goobood oo fariisin u ahayd xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ciidamada xoogga dalka ayaa mid u dul istaagay dhul buuro iyo hawd isku jira kaas oo kaabay ku haya deegaanada Camaara iyo Caad ee Koonfurta Gobolka Mudug waxaana guud ahaan halkan iskaga caaray kooxda shabaabka ahayd ee in muddo dadka ku dhiib jiray waxaana ciidamadu ay si weyn u xaqiijiyeen ammaanka goobaha maanta ay la wareegeen. taliyaha qaybta 11aad ee ciidanka xoogga dalka General Xasan Maxamed Abukar Xasan Jaabici waxa uu shacabka deegaanka Gabdhaale iyo deegaanada kale gobolka uu la wadaagay in muhiim ay tahay in loo istaago sidii kooxda Al-Shabaab looga saar lahaa guud ahaan dhulka hawdka ah ee kulaalaya deegaanada Caad iyo Camaara ee Koonfurta Gobolka Mudug isla markaasna u garab istaagi lahaayeen ciidamada qalabka sida militariga Soomaaliya ee maanta la wareegay deegaankan iyo deegaanada kale ka tirsan Koonfurta Gobolka. Waxa sidoo kale shacabka deegaanka uu ka dalbaday in aan loo dulqaadan dhibaatada Al-Shabaab ka geysanaya deegaanka isla markaasna ciidamada ay ku gacansiyaan qaabkii Al-Shabaab looga saar lahaa deegaanada kaabay ku haya deegaanka Camaara iyo sidoo kale deegaanka Caad ee Koonfurta Gobolka Mudug. Heeriyada in iska qaadaan la rabo ina xornimo ku noolaataan iyo in dhimataan waxaan kaga dhaxayn diin maaha waxa ka shaqeynaya idinkuna ogtiin Ilaahayna waa og idinkuna ogtiin wax allaale wax kasto Ilaahay xarimay sameeyaan mana tukadaan xataa mid waa laga yaabaa oo amiir inuu xoogaa u forforasado soo xoolo islaamid ku banaysaa oo la diinaan ka shaqeeya laakiin intooda badan kuwa kullee meelaha lagu qabtay anoo waligan ma tukan yiraahdo dhaxdo mid lagu qabtay ma maqasheen ma tukan yiraahdo waligan marka dad aan tukanayn oo diinna sheeganaya waa dareemi kartaan deegaanka haddaadnan ka xoreysanna ayaga qaadana haddaadnan deegaankiina ka xoreysan ayaga qaadanaya waxay guryaha idinka gubayeen waxay ahayd inaad meesha ka carartaan inaad sii joogtaan ba maahayn oo ay degaan ayagu dadkaana waa dadkii walaalihiin ahaa kuwa idinka maqnaay ama tuulooyinkan ama meelahan ilaa deegaanadan maaragtay ku barbaaray oo maaragtay ama xamar haday rabaan ku dhasheen laakiin deegaanka u dhashay waa dadkan dad kale maaha marka aan isgarabsan insha Allah hadduu Ilaahay idmo arxan darro ka badarano ma jirto maalintii la gubahay maxaa ka bees waxa ogaanaysan horta idin ma arki karo annaga intuu noo dirsan yahay oo annaga aan joogno xogaa waa idin dib dhigana maalintii annaguna aan meesha ka baxno oo qof qorisita la waayo qof ay idin bareynayaan ama say rabaan in kaga yeelayaan. Toddobaadkii la soo dhaafay howlgal militari oo ka dhan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ka socda deegaankan iyo deegaanada kale ka tirsan Koonfurta Gobolka waxaana ciidamada ay gudaha u galeen dhowr fariisin oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen aagga deegaankan.